suldaanka dhalinyarada Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed ayaa maanta ka qayb galay kulan uu la yeeshay dhalinyarada kala duwan ee gobolka Awdal kulankan oo ujeedadiisu tahay taageerada dhalinyarada u fidanayeen xukuumadda Soomaaliland isla markaasina ay kaga soo horjeedaan in lagu xadgudbo xuduudda Soomaaliland iyo midnimada dalka waxaana munaasabadaasi ka hadlay suldaanka dhalinyarada Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed wuxuuna cadeeyay in taageero hiil iyo hoob ay la garab taagan yihiin hawlgallada ciidamada qaranku ka wadaan buuhoodle arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi kasoo qasbanaatay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay shirkaasi tareex kasoo qasbanaaday gobolka Sool oo siyaasadeeyay waxaana ka shaqeeyay shakhsiyaad ay ka mid yihiin cali xabiib galay iyo xulfadiisa madaxweynaha waxaan ku dooranayaa nabad kasta oo ugu jirto dalka Soomaaliland inaad ka qayb gasho adiga oo muujinaya jiritaankeeda sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Nagiib Xuseen Soomaali iyo xukun Cabdullaahi Muuse ayagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen hamoodin inaad ku kooban tahay gobolka Awdal laakiin waxaad ku kooban tahay dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland gacmo furan baan ku soo dhameynaa annagu siyaasad kama shaqeynayno maygalaasa qabyaalad waa dadnimo waa isjacayl ودحدنا والكعب محب يونا ولا استاتيب محيط هذا الياتا سلام حقوق هذا هاي وحاول أن تسافر من الخير وحاول أن يهاجر من البلاد الثانية هاي وحي كلام هي المطلق قبلنا كنت الياتنا ويكبرت هاي أنت لك برنامج كبر علينا لقبت إن شاء الله للمجينية وعظم عافي تيفي قرنكا مقالة بورما